arrintaasi inay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badan, laba dhacdo oo dhacday oo midna ay ka dhacday dhulka xiga bari magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, midna ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. labada dhacdaba waxay ahaayeen laba dhacdo ku dhacday dad walaalo ah ee Soomaali ah gobolkood. arrin marka waxay ahayd laga xumaado, arrin aan horay u dhici jirin oo aad iyo aad u liidata. arrimahaas xanuun aan ka xanuunsanayno ayaan waxaan u qabannay war-saxaafadeedkan. arrinkaas runtii laba dhacdo oo kala horraysa bay ahayd. dhacdadii hore waxaa ku dhintay 4 dadkii ka mid ahayd xoogsatada ahayd oo aan waxba galabsan, oo ganac isaga jira, shaqadoodii ku jira, ayakoo meeshuu ay ka shaqaysanayeen joogana lagu laayay. dadna ayakoo midda ka dambe ayakana waxay dhacday fal ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo nin ka mid ahaa saraakiisha nabad sugidda lagu dilay. markii sarkaalka la dilay ka bacdina dadkii ehelada u ahaa ay kaceen oo ay dad aan waxba galabsan ay ayakuna laayeen. marka laba fal oo liidliidata bay ahaayeen, waana sii kala xanuun badnaayeen. runtii arrimahaasna waxaa la dhihi karaa waxa ka dambeeya oo dhibaatada hurinaya oo Soomaali isku laynaya oo Soomaali aan xushmaynaynin, walaaltinimadeeda iyo waalidnimadeedana aan garanaynin, waa khawaarijta. dhib kasta oo hadda Soomaaliya dhex yaalla sababka soo jiidahaya waxa weeye qowl ama ficil ka imaanaya khawaarijta. waxaan marka Soomaaliya oo dhan ku dardaarmayaa inay u midoobaan argagixisadaas oo iska xoreeyaan. waalid iyo walaal midna maahan ahal, maamul ma matalaan, ahal ma matalaan, qaraabo ma matalaan. dadka noocaas ah sidii la isaga qaba lahaa inay Soomaaliya u midoodana waa ku boorinayaa. waxaan aad iyo aad la wadaagahayaa bulshada Soomaaliyeed ee arrintaa ka xanuunsatay caawa oo taariikhdu tahay 16 bisha 6 2019 waxaa gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiiglayaalkii dilay 4tii hore oo ku dilay duleedka magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. ciidamada amniga ee Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay. waxaan rajaynaynaa biidni Illaahi al-Kariim dhibaatadii ay geysteen oo ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan u geysteen iyo dhibkii gaar ahaaneed oo ay marxuumiintii ahalkoodii iyo qaraabadoodii u geysteen, wixii ay ka mutaystaan shareecada islaamka in la geeyo. taasna waa rajaynaynaa biidni Illaahi al-Kariim. waxaa kaloo aad iyo aad lagu daba jiraa oo howlgalkeedii u socdaa dhacdadii ka dhacda Gaalkacyo. ciidamada amniga, culimaa udiinka, cuqaasha, dhallinyarada, hooyooyinka looma kala harin. xanuunkaas ay ka xanuunsadeen daraaddeed inay raadinahayaan dadkii waxgeystay. gobolkoodna aan rajaynayno in gacanta lagu dhigay sida aan ka helayno ila xog ogaal ah. kuwa kalena
gacanta lagu dhigi doono waxaan rajaynaynaa inay iyaduna guul ku soo dhammaato. waxa weeye arrintaasi ma ahan arrin soomaalinimo ah, arrin walaaltinimo ah, arrin ikhwaannimo ah, arrin ahalnimo ah ma ahayn. arrintaas sababkeedana waxaa iska lahaa khawaarijta ah argagixisada. ha loo midooba ayaan leenahay. ummaddaani meel kastay ku ganacsan kartaa Soomaaliya, meel kastay soconayaan. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala arsaaqdooda meel kasta yeelay. ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur. ilaahay waa midka ardada idinkaga dhiga mid sahlan oo aad ku soconaysaan korkeeda, oo meeshii muraad idinka galaba aad u aadaysaan. markaasaa ilaahay wuxuuna leeyahay ku socda geesaheeda, dhinacyadeeda, jawaanibteeda ku socda, waxaadna cuntaan. ilaahay risqiga uu idinku risqinayo. qofkan marka risqiga la siinayo ama wuxuu noqonayaa nooc walba noqdo risqigu. midkii afka laga cunayay, dhagaha waa la iska risqiyaahoo maqalka dhaguhu waa risqi, neeftu waa risqi, afka cuntada laga cunahayo waa risqi, indhaha aragga laga arkahaya waa risqi. marka intii meeshii ilaahay kaaga qoray inaad ama aragto ama aad maqasho, oo maqal lagaaga qoray, aragti lagaaga qoray, dhadhamin aad afka dhadhamido cuntada lagaaga qoray, aaryadii inay sankaaga gasho laguu qadara meeshay jirtaa laguu dhigayaa. marka ummaddii risqigeedii bay raadinaysaa. markaa kadibna ilaahay meeshii uu ka siiya ayay ka cunayaan. marka Soomaaliya waa walaalo, waa dad isku luqad ah, waa dad isku diin ahoo muslimiin ah, waa dad ahal ah. kulligood meel kastay joogaan waa sidaas. ficilkaasoo kaleeta dadka ku kacaana ma matalahayaan Soomaaliya, ma matalayaan. waa ficil xun oo ruuxa geysta in laga jaaziyeeyo mudan weeye. waxaan leenahay marka walaalaheenna koonfur galbeed, walaalaheenna hirshabeelle, walaalaheenna kaleeto oo ehelada ah oo dadka marxuumiinta ahalka u ah, waxaan leenahay samar iyo iimaan Allah idinka siiyo. annagoo dhanna samar iyo iimaan ilaahay naga siiyo. waa wax nagu wada dhacay, waana ka dhiidhinaynaa haddii alla yidhaahdo. inta laga horkeenahayo eedaysanayaalkaas sharciga islaamka inta laga horkeenayo waxay galabsadaan lagu qaadayo. waxaa aad iyo aad bishaaro weyn u ah in gacanta lagu dhigay cawada dadkii ka dambeeyay dilkii hore ee bariga dhuusamareeb ka dhacay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee dhacdadu maalintay dhacday iyo maanta inta ka dhaxaydaba ku raad joogay ilaa ay soo qabtaan oo gacanta ku dhigaan, sharciga islaamkana laga horkeeno. waxaan leenahay dhammaantiin khayr iyo barako iyo nabadgelyo, amni iyo istiqraar ayaan isku ognahay. waana mahadsantihiin. wabilaahi tawfiiq.